Halo, subax wanaagsan. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa Jaamac Axmed Jaamac. Saaka subaxa hore waxaan idinkula soo kallahay. Markaan saa u kacay baan waxaan arkay article aad u qiimo badan oo runtii aan aad uga helay. Oo aan is iri haddii aad la wadaagto asxaabtaada, haddii laba qof aragto xitaa, oo ay si fiican u fahmaan, waa wax badan ba noloshooda ka bedeli doonaa. Horumar badan ay ka gaari gaaraan. Article-kan waxaa la yidhahdaa 12 millionaire habits. 12 caado ama 12 dhaqan oo ay leeyihiin dadka millionaireska. Iska ilo millionaireska. Laakiin 12kan caado waxaan u arkay inay yihiin 12 caado oo qof kastoo doonaya inuu nolosha horumar ka gaadho ama uu noqdo qof aad u horumarsan oo noloshiisa oo dhami horumarsan tahay hadduu sameeyo hadduu iska ilaawin taa qaybta millionairenimada ama lacagta oo noloshiisa ku abaalgareeyo noloshiisa wax badan ka bedelisa. waxaa ka kooban yahay koowaad wuxuu odhanayaa always add value. Markasta waxaad noqotaa mid value soo kordhiya ama qiimo soo kordhiya. Kelmadda value haddaynu siyad dul taagno, value waxaan ku turjumi karaa wax kasta oo qiimo leh ama cid kale qiimo u noqon kara, ama product ha ahaado ama service ha ahaado ama everything wax baa u dhexeeya oo qiimo leh oo waa value. Kasoo qaad businesska oo kale, businessku value ku shaqeeya ama service ha ahaado ama product ha ahaado. Qof kasta markaa value uu iibiya problem buu solve gareeyaa markaad meesha timaadid. Marka problemka lagu solve gareeyay ayaa laga exchange ku yahay profit ama lacag laga qaato. Marka always number 1 inaad isku daydo value inaad soo kordhiso. Haddaad shaqadaada dhex joogto inaad value ku soo kordhiso, haddaad xaafadaada joogto inaad value ku soo kordhiso, haddaad business abuurayso focuskaaga koowaad inuu ahaado how do I add more value to the customers. Then value-ga aad soo kordhisay iyo wixii value-gaas ku hoosgareynaya inta u dhaxaysa ayaa profit-kaaga noqonaya ama faa'iidada noqonaysa. Taas waa qodobka koowaad, waa qodobka ugu muhiimsan. Qodobka labaad waxay ahayn wake up early. Subax kasta wax kacda xilli aad horeeya. Laga yaabo inagu inta badankeeda waxaan u kacnaa 7 ilaa 8 inta u dhaxaysa. Laakiin wake up early waxay kaa saacidaysaa inaad noqoto qof horumaray, financial horumarsan, spiritual horumarsan, dhaqan ahaan horumarsan. Kasoo qaad 4 kacdo ama 5 kacdo 3 hours ama 2 hours and a half aan dadka kala haysan ayaa dheertahay. Waa waxyaabo badan ku qabsan kartid, qorshayaal badan ku dejisan kartid, maskaxdaada kula tashan kartid. Ta saddexaad waxa weeye exercise, jimicsi inaad sameyso. Keliya ma aha inaad daryeeshid emotionalkaaga ama physical ama spiritually. Exercise wuxuu daryeelaa physicalkaaga iyo emotionkaaga, because exercise wuxuu dadka dhigaa more energetic buu ka dhigaa, more effective buu ka dhigaa. Marka qodobka labaadna waxa weeye, qodobka saddexaadna waxa weeye exercise. Qodobka afraad waxa weeye daily goal settings. Inaad samaysato ahdaaf maalinle ah, hadafyo maalinle ah oo aad hadafka aad maanta ka leedahay, maanta maxaan doonaya inaan achieve gareeyo ama maanta maxaan doonaya markay soo dhamaato inaan ku guuleysto. Imise qodob wax ama imise shaqo ii taal ama imise hawlood baan doonaya inaan dhameeyo, kuwaas oo ah kuwa igu horumarinaya noloshayda ama ii gaadhsiinaya meesha aan doonayo. Ka afraad waxa weeye time management. 24 saacadood everyone inaga mid haysta, times la mid haysana, laakiin waxaan ku kala duwanahay sidaynu u isticmaalno 24 saacadood. 24 saacadood qofku wax productive ku qabsanaya oo horumarkiisa iyo noloshiisa ka shaqeynaya, mise wax useless oo ama entertainment u badan ama magaxyo laga sheekeynayo u badan ama dad kale shumahooda u badan. Iyaguna time management, effective time management weeyaan. Qodobka lixaad ayaan ilaa umanaya inaan kala horeysiiyey networking wax loo yiraahdo. Networking waa qodob aad u muhiima, horumarka dadka ugu muhiima. Dadka inta taqaano iyo intay sii taqaano iyo waxay qabato iyo waxay awoodi karto waxay qaban karto ayaa aad ugu muhiima qofka guushiisa. Qofku ka yaqaano dadka horumarsan ama dadka elite-ka ah ee saameynta leh ayuu isaguna ka saameyn badan yahay oo ka horumarsan yahay. Kaasna waa qodob aad u muhiima networking-ka. Qodobka toddobaad waxa weeye health diet. Inaad cunto caafimaad qabta, taasoo kugu saacidaysa in jirkaaguna caafimaad ahaado, maskaxdaaduna caafimaad ahaato, aad noqoto qof caafimaad qaba. Waa in waxaasoo dhan intaad soo samayso haddaan ahayn qof caafimaad qaba oo wixii kasoo horbaxada cunaya oo macaan oo dhan iyo dhanaan oo dhan iyo xorba cunaya kadibna xanuun bada kugu dhacaya. Marka wixii oo dhan waxba kama faa'iidi kartid. Qodobka 8aad oo aad u xiiso badan waxa weeye saving and investing. inaad wixii ku soo gala shaqo ka soo gala ama business ka soo gala aad u qaybiso waxaad save garayso
iyo waxaad invest garayso. qodob baa yidhaahdaa ah pay yourself first, oo macnaheedu yahay wixii aad kasbato intaad saaf garayso inta ka dambeysa expense garee. inagu wax laga yaabaa 5 casho hore mushaar soo dhaco inaan taajirinahay, inta dambena aynu wada bankrupt nahay. marka qodobkan wuxuu qodob sidiisa aad u baahan tahay in loo baaro habka loo safe gareeyo, habka loo invest gareeyo, taasoo mustaqbalkaaga iyo horumarkaaga wax badan ka bedeli doonta. qodobka 9aad waxa weeye mindfulness, inaad noqoto qof maskax furan oo maskaxiyan aad qof u maskax furana oo ixtiraam badan oo soo dhaweeya aaraha kala duwan oo fara badan, wax badan meelo badan ka baara, oo noqdo qof aan maskaxdiisu xidhnayn oo wax kasta oo loola yimaado ama wax kasta oo horumar ha ahaado ama wax kasta ha ahaadee qof xidhan oo maskaxdiisu xidhanta aan ahayn. toddobaad waxa weeyaan work with mentors, la shaqee dadka horumaray aan mentorska ah ee achieve gareeyay nolosha wax ama waxaana doonayso dadka hore u gaadhay. haddaad business aad tahay qof business oriented ah, dadka businesska successful ka gaadhay. haddaad tahay qof academic oriented ah, inaad dadka academiga oriented ka ah wax mentorska ah aad xiriir la samaysid, la shaqaysid, wax ka baratid. tawada mise waxa weeye contribute to others, inaad dadka adiguna wax tartid. kasoo qaad adigii markaad wax badan baadhid oo wax badan heshid, haddana aanad adigu wixii isku soo koobin, aad iska digtid qof adiguna dadkii kale wax contribute gareeya. hadday noqoto financially aad contribute garaysid, hadday noqoto talo ahaan aad contribute garaysid, hadday noqoto at least aad sharkaaga ay kaa nabad galaan oo aanad wax badan aanad adigu dadka yeelin. 11 qodob ama 12 qodob ayaan kusoo koobayaa. runtii maan sii faahfaahin oo waqti badan waxayo shaqadan usii diyaar garoobiyey. ka raali ahaado meehi qof kamarada iyo waxaan ku wanaagsan oo meehi qof speaker wanaagsana, laakiin waxaan jeclaystay in aanan isku koobin dahabkan yar aan meesha ka helay aan la wadaago asxaabteeda. ugu yaraan 2 qof oo kale hadday faa'iido oo akhrisato waxa weeye wax aniga aan ku farxayo. waxaad ka akhrisan kartaa isagoo full detailed ah website ka la yiraahdo entrepreneur. marka website-kaas ayaan ka akhristay saaka, waana wax aad aan aaminsanahay in wax badan nolosheena uga bedeli karaan. guul baan idin rajeynayaa. asalaamu calaykum.